صراحة برنامجكينو عاوة محمد عثمان قذافي halkaad nagala socotaanaha dhageystayaal waa hoyga Soomaalida Holan oo aad si toos ah uga dhageysan kartaan barta internetka ciwaankeedu yahay dalmar.org waxay dhageystayaal waa barnaamijkeeni ciyaaraha ee hoyga Soomaalida Holan mas'uuliyiinta garoonka diyaaradaha ee dalkan Holland ee Schiphol iyo dawladda hoose ee uu ku yaalo madaarkaasi ayaa ku gacan sayday in ay magdhow lacag ah siiyaan koox taageerayaal kubadda cagta ah kuwaas oo loo diiday in ay ka duulaan garoonka diyaaradaha ee Schiphol waxaana hore looga mamnuucay 16 nin oo kamid ah taageerayaasha kooxda ADO Den Haag kuwaas oo lagu soo waramay in ay rabaan in ay la dagaalamaan taageerayaasha kooxda Ajax oo rabay iyaguna inay halka ka duulaan 16 nin oo kamid ah taageerayaasha nooca loo yaqaan hooliganka ayaa loo diiday in ay ka duulaan ama adeegsadaan madaarka Schiphol waxaana lagu eedeeyay in ay ku soo beegmeen xilli ay taageerayaasha Ajax Amsterdam u duulayeen dalkaasi Talyaaniga siba magaalada Torino oo ay Ajax kula kulmaysay kooxda Juventus waxaanay bilaabeen ashkato si loo siiyo magdhow lacag ah iyagoo sheegaya in loo diiday muwaadiniin Hollandiis ah inay ka duulaan madaar ku yaala dalkooda iyagoon waxba galabsan wahagaag balaynu gudubno ciyaaraha qaybahooda kale توبرها كوحدة أزد مجالة ألكمار أو أهانجري توبرها قرن كنيدرلاند إيوه دلالك كوريا روشكا إيدوانتا أو دلالك بلجيوم توبرها النقضي أي سيادة وحمادي عيارة تضباط كان دحمرتي كوحديسة عصوب أزد ألكمار وكبرين كرويدي كوحدة في فانلو وحانو شاقي إن أي تهي وح لغو حمادو إن أي أزد هيركاس قادو وحانو انتاس قدري إن أورجينيو إن سنة كدنبه وغارسيو أزد kooxaha ciyaari doona horyaalka Yurub hase yeeshee hadii ay sidan u sii wadaan in aanay waxba ka hirgelayn waxa uu rabo dig advocate ayaa ogolaaday in uu la wareego hoggaanka kooxda kadib markii ay la soo darseen dhibaatooyin dhaqaale kooxda ka socota magaalada Alkmaar oo ku taala waqooyiga dalkan Holland توبرها كوحدة FC 20 مجالة إنشغدي أو كارين طلبات كجرا هريال كدلكن أيا استغنا قاضية إن أي تورنتو كوحدة كارين تكوبات كجرتا PSV ستيف ماكلارن أيا إسنا سياد أسودوية مركي كوحدة PSV تضبط كان أي بربرولوجا شيء كوحدة سبارتا نبي اللحدة نبعوض أي PSV كوه جامينيسا هريال كدلكن هولند ستيف ماكلارن إيه كوحديسا FC 20 أيا عيروnaag la soo baxay bariyahan dambe taas oo keentay in ay ka mid noqdaan kooxaha tartanka ugu jira horyaalka dalka Netherland waxaanay toddobaadkan ka guuleysteen kooxda ka socota magaalada Tilburg ee Willem II dankoodana kooxda hoggaanka haysata mas'uuliyiinteeda PSV iyo ciyaartooyduba waxay ka gaabsadeen in ay faallo ka bixiyaan sida ay uga badin kari waayeen toddobaadkan kooxda Sparta oo barbaro la gashay halkaas oo ay 2 dhibcood ku seegeen horyaalka dalka waxaana horyaalka dalkan Netherland imika hogaaminaya sidan horeba u soo sheegayba PSV Eindhoven oo 62 dhibcood leh waxa ku cagacagaynaya oo hoosta kaga jira oo iibaneele FC 20 oo 60 dhibcood iyaduna leh kooxda Ajax Amsterdam ayaa moodaa in ay 55 dhibcood halkaas waqtigu kaga dhacay oo ay la soo gurguranayso haddaan wax yar ka soo qaato horyaalada kale ee Yurubta Britain aan ku bilaabo Premier League waxa hoggaanka haysta kooxda Chelsea oo haysata 60 dhibcood waxaana ku xiga Manchester United oo 50 dhibcood iyadu haysata kaalinta saddexaad waxa ku jira Arsenal oo 50 dhibcood iyaduna haysata waa hagaag xaggaas iyo Jarmalka horyaalkeeda haddii aan u noqdo oo lagu magacaabay isagana Bundesliga waxa ugu horeeya Bayer Leverkusen oo 49 dhibcood haysata waxa ku xiga Bayern Munchen 49 dhibcood iyaduna sidoo kale haysata waana la isku dhageeyay markaysa laakiin Leverkusen ayaa goolal badan oo dhalisay loo xisaabiyay sidaas ayna hoggaanka si ku meel gaar ah ugu haysata ileen labaduba waa 49 goolasha unba lagu kala badiyay kaalinta saddexaad waxa ku xiga Schalke 04 oo iyadu ku jirta 45 dhibcood oo kaliya waxaad moodaa in halkaas soo dhaafi kari weyday Primera Divisione waa horyaalka dalkaasi Hispania
waxaana hoggaanka haysta Barcelona oo 58 dhibcood wadata waxaana ku soo hoos jira Real Madrid oo 56 dhibcood iyaduna wadata ugu dambeyn Valencia ayaa 43 dhibcood iyaduna sidoo kale aad moodaabada inay soo dhaafi kari weyday haddaba ciyaar ka mid ah horyaalka Yurubta ee Champions League oo dhexmartay kooxaha Inter iyo Chelsea oo xamaasad lahayd ayay sheegeen mas'uuliyiinta Chelsea markay ciyaartu dhamaatay in Peter Cech oo ah goolwalaha kooxda Chelsea oo halkaas ku dhaawacmay oo aanu ciyaari doonin ciyaarta dambe ee la isugu imanayo London Carlo Ancelotti oo Chelsea wata ayaa ku guuleysan kari waayay in uu aamusiyo tababaraha kooxda Inter oo ahaan jiray tababarihii hore kooxda Chelsea laguna yaqaano inta badan faan iyo isqaadqaad badan laakiin waa la isku soo noqonayaa markan waxa guuleystay Jose Mourinho Inter ayaa 2 gool iyo 1 ku badisay ciyaarta hore ee lagu ciyaaray Talyaaniga waxaana la sugayaa ciyaarta labaad oo dhexmari doonta labada kooxood 16 bisha March ciyaartaas oo ka dhacaysa garoonka Chelsea ee Stamford Bridge oo ku yaala London هدافي برنامج عيارها هويغا سوماليدا هولن تضباط كان انتاس ayaan ku soo koobaynaa